sidii qorsho u ahaa maanta inuu iskuulku shaqadii u horreysay ee sanad dugsiyeedkan u bilaabo waxaan doonayaa inaan idhaahdo soo dhowaada ardayda cusub sanad dugsiyeedka cusub 2018 jaamacadda Camuud qaybta masterta iskuulkan ama qaybtani waxa weeye waxa la furay 2012kii hadda waxa iskuulku uu marayaa in uu ku sii dhowaado sanadiisii toddobaad muddo soo shaqeynayay muddadaasi waxa uu iskuulku helayay khibrad iyo waaya aragnimo iyo sanadka ka dambeeya in la horumariyo oo wixii maxaan ku raday halkii hore la taagnaa aan isku dayno inaan hore uga dhaqaaqno mar walba barnaamijyada aan keenno waa kuwa aan isku dayno inaan ku salayno baahiyaha dhabta iyo waxa ummaddu ay u baahan tahay oo aan maxaan ku raday nidhaahno waxa weeye baahida in laga jawaabo laga maarmaanka weeye we moved all the long journeys from wherever we came from to come here and meet you and teach, but we remember that we don't believe that you don't know anything, so we are also here to learn from you. So many things we shall learn from you. So what does that mean? We are going to learn from one another, and by so doing that we are going to work as a team. There are so many things that we are going to find. The dean, in a few words that I've picked, I had him talking about the deadlines. isku dayo inaan iyar ka sharaxo waxyaabaha aad ka fili kartaan inaad halkan kala kulantaan jaamacadda Camuud hadii la haydmo sida aad ka warqabtaan jaamacadda Camuud School of Postgraduate habka uu u bixiyo duruusta waa laba qaybood waxa la yiraahdaa coursework ardaygu inuu class fadhiisto oo uu koorsooyin qaato waa 14 course 15 course ila 16 course si foundationka ardayga ama basekiisa si loo dhiso marka hore inta marka la dhiso waxa dhex socda inuu ardaygu soo diyaariyo proposalki waa research qaybta labaad ardayga inuu research sameyn karo qaybta course-ka waa horaad u taqaanay waa 3 saacadood baad class-ka fadhiyaysaa macallinku si joogto ah buu xiisada u bixinayaa wad kala faa'iideysanaysaan hadii la haydmo hadhowna waa lagu imtixaamayaa inta badan innaga waxa dhaqan inoo ah inaynu wax u baranno markay course-ka noqoto sidii aynu imtixaanada u baasi lahayn laakiin mar haddaad heerkan soo gaadhay waxa laga filayaa waxa weeye inaad buug badan akhrido si hadii ilaahay qadaro qof cilmi haya aad u noqoto waxa la yiraahdaa qofka marka wax baranayo ama hal course ha noqoto ama qalin jabintiisa ha noqotee 3 shay baa laga filayaa inuu faa'iideysto 3daa haddaad iska weydo waxba kaamay soo raacin jaamacadda Camuud qodobka koowaad waxa weeye knowledge aqoon guud theories principles methods etc iyo wixii la mid ah waxa inaad faa'iideysatid si guud cilmi guud oo general inaad faa'iideysatay